السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلكن dhageystayaal meel walba aad joogtaan iyo soo maqalkayga idin soo gaariyo ku surwada idin soo gudbinaya qiso jacaylo la magac baaday dilanteed jacayl la fahmoodo hayloobin adigu inaad like saarto page-kani arrin subscribe ku qabta ku surwada qiso jacayl Munir Axmed Kadiye oo ka sheekeyn doona qiso dhab ah oo isagoo ku dhacday xaaladda uu ku sugan yahay iyo sidoo kale wax walba sida ay ku bilowday iyo sida ay ku dhamaatay. qisadani waxay qayb ka tahay qisooyin badan oo jacayl oo shabakada arrimaha jacaylka loo soo diray dhawaana idin la wadaagi doonto qisooyin badan oo dhageystayaal badan ama akhristayaal badan oo ku xiran page-ka inoo soo gudbiyeen. markii ayna soo gaarto dabagal ayaan ku haynaa si aynu u helno xaqiiqada qisada taas. Munir Axmed waa wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho si daacad ah ayuu kaga sheekeyn doonaa qisada qabsatay iyo sidoo kale sida ay ku bilaabatay. weliba Munir oo hadda wuxuu u baahan yahay talooyin qalbi qabooj isagoo email-ka hoos idinkugu soo raacin doona, balse sheekada ayaan sida tan ku bilaabatay. ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo ii suurageliyay inaan maalmo badan kadib aan helo meel aan fariinta qalbigayga ku duugan kula wadaago walaalahayga Soomaaliyeed wiil iyo gabar. sababtoo ah waxaan ahay walaalkiin hadda aad qalbi jab inkastoo wax walba ay qoran yihiin. magacaygu waa Munir Axmed Kadiye, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. waxaan hadda jiraa 26 sano. waxaan doonayaa inaan qiso ay ku dhacday aan idin soo gudbiyo. muddo hadda laga joogo 10 sano da'deenu ay tahay 16 ayaan isbaranay gabar markaas 14 jir ahayd, balse hadda 24 jir ah. arday baan ahaa, iskuulayna isla dhiga jirnay. waxaan sheeko walaalnimo kadib la dhex maray xiriir jacayl, wuxuuna ahaa xiriir jacaylkii ugu horeeyay ee aan yeesho. waxaan wada soconay muddo dhan 10 sano. noloshii bilowgeedii ilaa iyo gadaal dambe aad ayaan isu faraxsaneen. waxay igu dulqaadatay ardaynimo, waayo markii aan markaa ma shaqayn jirin waxaa jirtay qisooyin badan oon isla soo marnay. xitaa ehladeedii qaarkood ayaa igu nacay gabadhii aan jeclaa oo magaceedii aan awoodin in aan halkani ku baahiyo. way igu samirtay, waayo Soomaalida aad ay u mamaaxday bishoo ku jecel bakool muxuu kaa dhibaa. hooyadeed iyo aabaheed imana been oo aad bay ii jeclaayeen, laakiin eedayaal iyo habaryaalayaal baa jiray oo gabadha nin kale la damacsanaa, balse taasi ma aysan dhicin oo iyadu garabkaygii ahayd. wallaahi xaafadii ay degneed iyo midda aan anigu degnaa jacaylkeennii wuu ku baahay. waxaan noqonay dad lagu sheekaysto sanadba sanadka ka dambeeya, ilaa iyo dadka qaar ay moodaan inaan isqabno. ilaahay ayaa ii fududeeyey dugsigaygii sare. waxaan bilaabay jaamacad sanadkii 2010. waxaa iyadoo loo sheegay in loo hayo leen ama dibad loo wadayo. way ka madax adeegtay, waxaan ayna go'aansatay anigoo jaamacadda dhiganaya inaan isguursano. run ahaantii waxaan sameeyay ayaan garan waayay, iyadana waan jeclaa. xoogaa waxaan diidanaa qof aan mas-uuliyadeedii qaaday in aan reerkaygii ay igula noolaato. iyadoo taasi ay jirto ayaan habeenada ka mid ah waxaa soo wacay hooyadeed, waxaana la igu dalbaday inaan xaafadda imaado. markii aan tegay ayaa hooyadeed iyo aabaheed waxay iga codsadeen in aan gabadhoodii u fasaxo si leenkaasi aanu u khasaarin, laakiin si niyadda waxaa laygu qaboojiyey in ay anigu ii joogto xilli weliba. waxaan sameeyay ayaan garan waayay, waayo naftayda ma aysan ogolayn qof aan jecelahay in ay iga fogaato. wallaahi waa iga daacad sheekadan. waxba kuma darayo, waxbana kama jarayo. waalidkii waxaan ku yidhi waan idin ogolaaday wax walba ood jeceshihiin. iyadu ayaan qolkeedii ugu galay. waxaan ku yidhi anigu oo ka xun xabiibtii, labadeena waan isjecelnahay, cidina nama kala fogeyn karto. waxaan kaa baryayaa in hooyo iyo aabbo aad niyad ka jibin si aan duco u helno aad tooda u yeesho. diidmo kadib way iga qabashay. waan xusuustaa habeenka ma seexan aniga. idin way iga dhammaatay. maalin kadib waxay u baxeen iyada iyo reerkeedii Itoobiya. anigu ilaa iyo Hargeysa ayaan la tagay. markii ay gaariga Addis Ababa raaceen, diyaarad baan iska soo raacay. waxaana ii bilowday murugo iyo walwal joogto ah iyo fakar heer aan gaaro in raashinka xitaa aan cuni kari waayo. sida ay ahaataba noloshaasi waan iskala qabsaday aniga. intaan jaamacadda dhiganayay ayaan helay shaqo xafiis gelin dambe ah. waan iska shaqaysanayay, iyadana wax walba oo qalbigeedii u baahato kuma akrin jirin, sababtoo ah nafteedii ayaa ku faraxsanayd inta ay halkaasi joogto. ayaan xoogaa isbedel yimid, sababtoo ah wax halkaasi ay ku baratay asxaab kala duwan. anigu ma ogaan lahayn, laakiin waxaan hayay baasweedka emailkeedii hotmailka oo isticmaali jirtay. waxaa bilowday fariimo la isku diro asxaab dibadda jirta. run iyo been waxay doonto ha u sheegtee, aniga xarigii kalsoonida ayaan gacmaha oo ilahaa adiga iyo dhab ku jeceshahay. waxaan kale waa howl iska dhalinyaro. muddo markii ay sidaasi ku socotay ayaan adkaysan waayey. waan wacay, waxaan ku dhahay walaalay maxaad sidaas u samaynaysaa? waxayna igu dhahday adigu waxyaabahaasi waxba kaama quseeyaan, aniga kalsooni ku qaba.
dhamaadkii sanadkii 2010 aniga aabahay aan dunida u jeclaa baa geeriyooday waxa soo kortay mas'uuliyadda reerkaygii waxaan noqday nin xil culus qaaday sidaas ay tahay habeen iyo maalin sida iyadu muqdisho ila joogtay ayaan u wici jiray balse iyadu waxaan ka dareemay gaabsi badan waxba yaan hadalka idinku daalin sanadkii 2013 ayay xamar ku soo laabteen dhammaantood sababtoo ah laankii ayaa socon waayay anigu waxaan noqday nin yara shaqaysta waxaan islahaa way ku faraxsan tahay guurna u bandhig laakiinse sheeka dhan ayaa isbedeshay weji cusub ayaana la kulmay way iga diiday guur iyadoo ilaa Yurub ayaan tagayaa ilmaheena mustaqbalkooda ayaan ka fikirayaa aniga tii baryo ahayd wallaahi waa iga dhamaad laakiin waan iska sabrada ayaana noogu darsantay aqliga uu batay iyadoo waxay bilowday in rag kale ay la hasaawdo aniga asxaab meesha degan baa warka ii keenay laakiin aniga waxaan qalbigayga geliyaa kalsoonida haburfurin aniga wallaahi billaahi baan ku dhaartay gabar kale xiriir iska daayay wax aan salaan ahayn isma dhaafsan sida jaceelkeena u ixtiraamaya oo kaliya bilowgii sanad 2015 laankii dib loogu yeeray waxaana ku dhahay xayaati anaga maxaa inoo xal ah maadaama sanadaha sugaysay waa doqonnimadaada ayay ahayd taleefanka ayaa lagu damiyay walaalkeedii xamar reer ku lahaa ayaa la soo hadashay Twitter una u sheeg aniga waa iga daacad ma rabo Soomaaliya dambana uma soo socdo runtii aad baan qalbiga uga karay wax jirto walaalayaal in dhaawacaygii fahmaysa aflagaada hadal xumo iyo waxyaabo badan oo ay dhahday laakiin damirkaygii ayaan isiin waayay inaan halkan ku sii fadfado inta aan dadaal samayn karo waan sameeyey laakiin way ii suurageli weysay go'aan ayaana ku qaatay inaan xiriir dambe samayn noqdo qof iska shaqaysta dalkana ma doonayo inaan weligay meel ugu baxo ganacsi ayaan abuurtay markaan jaamacadda dhameeyey kadib alxamdulilah waxaan hadda ahay qof shaqaysta hanti ku filan ilaahay siiyey laakiinse habeen iyo maalin markaan soo xasuusto waqtigay iga lumay wallaahi waan shalaayaa misna iimeeyaa hadda aniga jacayl uma qabo mana doonayo nolosheedii in aan ku laabto haddii ay dhacdo in dib loo kulmo maadaama aan jeclaa wallaahi si niyad ah ayaan waafiyey ilaahay ayaana talada saartay waxaan ilaahay ugu baryaa nafsigaygii uusan ka soo bixin maxaa yeelay waa gabar Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka baryaa in waddo wanaagsan ay qaado mar kalena aysan qof sideeda oo kale dhaawicin waxyaabaha aan idinkugu soo bandhigay arrintan ayaa ah in marka hore aan qalbigaygii si wanaagsan idinka ugu soo daadiyey xusuus dheer aan geliyey in aan wax aan keligay qarsanayay banaanka u keeno si aad ila wadaagtaan abaayaasheeda Soomaaliyeed iyo wiilasha walaalahayga Soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaad iska ilaalisaan nafsi inaad qof kale ka gashaan waan idin baryaa qof ku jecel rajabeel ha ku ridin waayo aad ay wallaahi u xanuun badan tahay marka qof jecleed ku dhaawaco haddii hadda aniga noloshayda waa caadi gabar kale xiriir lama samayn keliya waan iska shaqaystaa xilliga nasashada waxaan iska galaa qolkaygii gaarka ah oo isku maaweeliyaa igana raali noqda haddii aan ilin idinka keenay ama qisadeedii ay xanuun idinku reebtay haddii aad haysato qof ku jecel fadlan ha dayicin oo ka faa'iidayso adduunyadu waxa ugu fiican nolol la wadaagto qof aad isjeceshiin weel qiyaamo ma buuxsano waad mahadsantiin dhegeystayaal like sartaan page-kiisa YouTube channel-kiisana inaad subscribe sartaan ha ilaabina adduunyadu xilma laho xilli badan bay jirtayo adduunyadu xilma laho xilli badan bay jirtayo xaji shalay badnaaba anta xoolahay samee xaji shalay badnaaba anta xoolahay samee adduunyadu xilma laho xilli badan bay jirtayo adduunyadu xilma laho xilli badan bay jirtayo xaji shalay badnaaba anta xoolahay samee xaji shalay badnaaba anta xoolahay samee iskayga adiga ahantiyo xabadka bartankiisa iskayga adiga ahantiyo xabadka bartankiisa